سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم، علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا ليال وحاين كقد جرني كتاب كيني الرحيق المختوم، وحايننا بلابين درسيني أفراد إن شاء الله بإذن الله الكريم. وحاين مريني قومكي عربتا سيدي أي هاين إسلام كهر، خاصة قومكي رير سبا أينو كقد جرني. ولا ليال رير سبا البحنمدود وحي هنقادي وأودود حكونا في الدي كو إيطمان قرني كهر دلشدي عيسى عليه السلام. waxaa loo qaybin karaa marxaladahooda sida qiyaasaha soo socda. qarniyadii ka horeeyay 650 sano dhalashadii ciise ka hor, waayahaasna boqoradooda waxaa lagu naanaysi jiray Makrib Saba. caasimadna waxa u ahayd magaalada Sarwaax, oo sidoo kale loo yaqaan Khariba, oo burburkeeda laga helay meel maalin socod dhinaca galbeed ka xigta Maarib. waagaas bayna bilaabeen dhismaha biyo xireenka Maarib oo ku lahaa ahmiyad weyn taariikhda Yemen. sabab waxaa sidoo kale la sheegay inay lahaayeen awood gaartay heer ay mustacmarada ku lahaayeen dhulka carabta gudihiisa iyo dibadiisaba. waayihii u dhaxeeyay sanadkii 650 ilaa sanadkii 115 dhalashadii ciise ka hor, waxay joojiyeen magaca Makrib oo qaateen halhayska boqoradiisaba, waxayna sidoo kale ka dhigteen Maarib caasimadooda. halkii Sarwaax burburka Maarib waxay ku dhacdaa meel 60 mayl dhinaca bari Sanca ka xigta. muddadii u dhaxaysay sanadkii 115 ciise ka hor ilaa sanadkii 300 ciise kadib, waayahaas waxaa xukunka Saba la wareegay qabiilka Ximyar, waxayna caasimad ka dhigteen Raydaan halkii Maarib. waa dambe Raydaan waxaa loo bixiyay Difaar, waxaana hadda burburkeeda laga helaa buur wareegsan oo u dhow magaalada Yariin. waayahaas waxaa boqortooyada Saba ka bilowday burbur iyo hoos u dhac. ganacsigoodiina in weyn buu hoos u dhacay, sababtoo ah ugu horeyn dowladii qotida ee ka dhisnayd waqooyiga Xijaas. tan labaad, sababta qabsashadii Roomaanku marinadii ganacsiga badda kadib ku duulidii Roomaanku iyo qabsashadoodii Masar. iyo tan saddexaad, sababta loolanka qabiilooyinka dhexdooda ka dhashay iyo dagaalada sokeeye. saddexdaas arrimood baana sabab u ahaa badidii iyo kala firirkii reer Qaxdaan. laga soo bilaabo sanadkii 300 soo gelidii Islaamka dhulka Yemen, waayahaas waxaa isugu xigsaday reer Yemen qalalaaso iyo dhacdooyin iyo inqilaabo isdaba joog ah iyo dagaalo sokeeye, taasoo sabab u noqotay faragelin shisheeye oo ay madax banaanidoodii ku waayeen. waqtigaas bayna Roomaanku cadan soo galeen, kaalmadooda bayna Xabashidu Yemen ku qabsadeen markii ugu horeysay sanadkii 340 ciise kadib, iyagoo isla markaasna ka faa'iideystay loolankii u dhaxeeyay labadii qabiilo ee Xamdaan iyo Ximyar. Xabashidu waxay haysteen Yemen ilaa sanadkii 378 ciise kadib, dabadeedna Yemen waxay heshay madax banaani. waa dambe waxaa ku bilowday biyo xireenkii Maarib, Fadac iyo Dalooshamid, taasoo uu ku xigsaday daadkii weynaa ee 450 ilaa 451 dhalashadii ciise kadib ee lagu xusay Qur'aanka Kariimka, taasoo ahayd dhacdo weyn oo keentay dumidii xadaaradii Yemen gebigeedba iyo kala firirkii iyo qaxii ummadihii halka ku dhaqnaa. sanadkii 523 Dunawas oo Yuhuudi ahaa wuxuu qaaday olole lixaad leh oo uu ku tirtirayo nasaaradii reer Najraan, isagoo doonayay inuu diintooda xoog uga saaro oo ku geliyo diinta Yuhuudda. markii ay diideen, wuxuu u qoday booraamo uu dab ku huriyay oo uu ku daadiyay, waana dhacdada Qur'aanku ku xusay suuratu Al-Buruj. taasna waxaa
ka dhalatay hawl aargudasho ah oo dhanka nasaarada ka timi oo ay hogaaminayso imbiradoriyadii Roomaanku. waxayna ku dhiirigeliyeen dowladda xabashidu inay Yaman qabsataa, waxayna u diyaariyeen maraakiib ay ciidamadooda ku daadgureeyaan, waxaana Yaman ku soo degay 70,000 oo askari oo xabashi ah. mar labaad bayna Yaman qabsadeen iyadoo uu hogaaminayo Aryaad sanadkii 525 dhalashadii Ciise kadib. Aryaad wuxuu noqday hogaamiye Yaman u taliya oo boqorka xabashida wakiil uga ah, dabadeedna waxaa isagii dilay mid ka mid ah hogaamiyeyaashii ciidankiisa. Abraha oo taladii kala wareegay oo isna dhankiisa wakiil uga noqday Yaman boqorkii xabashida markii uu raali geliyay kadib. Abraha waa ninkii ciidamada u abaabulay inuu Kacbada sharafta leh dumiyo oo isaga iyo askartiisa uu Allah halaagay oo loo yiqiin asxaabul fiil. markii ay dhacday haligaadii asxaabul fiil oo cududii xabashidu Yaman ka joogtay ay daciiftay, bay Yamaniyiintii u qayshadeen dowladii Furus waa Bershiye oo markaas ahayd quwadda labaad ee Roomaanka dunida kula tartamaysa. waxayna ku guuleysteen inay xabashidu dhulkooda ka cayriyaan sanadkii 575 dhalashadii Ciise kadib. waxayna boqor u magacaabeen Macdi Karib bin Yusuf Duyasin al-Himyari oo isagu kacdoonka xabashida lagu saaray hogaaminayay. Macdi Kab wuxuu xabashida kala xaray rag u adeega oo horsocda, iyagaana markii dambe dilay. halkaasuna ku go'ay xukunkii reer Himyar. taasna waxaa ka faa'iideystay boqorkii Faris oo Yaman u soo dirsaday xaakim Faris ah oo uga wakiil ah oo Sanca u fadhiya. sidaasna Yaman wuxuu uga dhigay gobol Faris ka tirsan oo uu hadba boqorka Faris gudoomiye u soo dirsado. waxaana gudoomiyeyaashaas u dambeeyay Baadaan oo isagu islaamay sanadkii markii uu ahaa 638 dhalashadii Ciise kadib. markaas wixii ka dambeeyayna Yaman waxay noqotay gobol hoos yimaada oo ka tirsan dowladda Islaamka. walaalayaal, darsigeenu maanta halka ayuu inoo joogayaa. inta aynu darsigan darsi la mid ku kulmi doonto, waa Maxamuud Jaamac oo idin leh amaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.